الله أكبر. boqolaal ruux ayaa isugu soo baxay salaada jimcaha masjidka Umar bin Khattab ee ku yaala goobta Soobe waxaana loo tukaday salaada janaasada madaxweynihii hore ee Masar Mohamed Morsi oo 7 gudihiisa isagoo dacwad ku socota ku geeriyooday maxkamad ku taala dalka Masar jamaacadii dadkii ka qayb galay munaasabada ama salaada janaasada waxay u duceeyeen marxuumka inuu Alle u dambi dhaafo waxaana ay sheegeen inay aad ugu xun yihiin daacadii loo geystay ilaahay oo qaa'id isagoo kala muslimiinta Allah u soo saaro ilaahay habadiyo isagay Erdogan iyo wixii lamida ilaahay habadiyo ilaahay zaalimiinta ee mar walba muslimiinta ee dib u dhigaya isku dayay inay god ku ridaan ilaahay garab naga sii ilaahay adaan ku baryeynaa garab naga sii muslimiinta meel walba joogan mashaariqa wal magharib kulligood waxay u wada istaageen in ay maanta isku wada duubnaadaan ilaahay oo waxdadaas iyo kelimadaas iyo quluubtaas ilaahay u miday ka hor salaada janaasada marxuumka ayaa loo aqriyay quraan loogu duceynayay waxaana dadku ay siteen boorar ku sawiran marxuum Mohamed Morsi gudaha masjidka waxaa laga daaray muuqaal muslimiinta masjidka lagu xusuusinayay kelimooyinka dhaxalgalka uu jeediyay inta uu noolaa Allah u naxariistay Mohamed Morsi madaxweynihii hore Masar ka uu hadlay dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta Falastiin iyo dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya كما كانوا منذ سنوات وإنما نحن جميعا مصر شعبها الكبير وإمكانياتها الضخمة. Sheekh Abdixay Sheekh Aadan oo ku soo shaqeeyay in loo tukado janaasada marxuum Mohamed Morsi ayaa sheegay in gardarro lagu haystay isla markaana hoggaanka talada ee Masar ay diideen in janaaso laga qayb galo lagu tukado balse Allah ayaa qadaray buu yiri in dalal badan oo islaam ah lagu tukado haddii madaxweynihii sharciga ahaa ee la afgambiyey ee la dilay ee dalxumada loo diiday inay dadku ogaadaan oo si degdeg ah habeenimo loo aasay salaad subax kadib la foobsiyey shantii agaaraheeda oo eelkiisii iyo asxaabtiisii inay janaasada kala qayb galaan wayba dileen maydkiis inay keenaan ay diideen ay foobsiyeen si ay u usduug ayaa ay Soomaalidu sidoo kale usduugi ay usduugayeen waa awliyaa Allah yukamid ala inna awliyaa Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يعني الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالشارع يلين وصاصو بلدوينة كسمايو جوهر كينيا كمبالا العالم كله هنديا باكستان بل هدي علم كنان قروب المؤمنين توقعوا عليهم تقف مؤمن واحد لقد قال هذا يراتين المسجد بيت المقدس مسجد الأقصى ay ugu horeysay oo looga tukado Ismaaciil Haniya ayaa hadlaaya oo leh qaar kamida jamaacada masjidka ku tukatay salaada jimcaha janaasada ayaa banaanka masjidka ku socod ku maray iyagoo sita boorar lagu sawiray marxuumka in kamida dadkaas oo nala hadlay ayaa u duceeyay waxana ay sheegeen in si arxan daro ah loola dhaqmay Hajr Abdul Qadir RTN TV Muqdisho